waxaan idin sheegayaa oon halkan usoo fadhiistay hooyo Soomaaliyeed ama wiil walaalkay ah Soomaaliyeed oo mataqaanaa dulin iyo caqabado fara badan lagu hayay. insha Allah taas way dhamaatay wayna soo afjarantay. qof walibana magaalada Nairobi loo wada sameeyay si xaq ahna waa lagu wada joogi doonaa. inta la soo dulmayna insha Allah dhiigayga ay idin daatay. walaalkay waxaan ku soo rajeynayaa caafimaad sidoo kalena waxaan ku soo rajeynayaa in ilaahay macnaha dhib kale uusan kuu keenin oo hadallada maanta aad leedahay uusan dhib kale kaaga iman maadaama aad ku dhex nooshahay dad qulubtooda iyo qalbigoodaba uu noqday qabiil balse aan ixtiraamaynin waxa la yiraahdo bini'aadanimada ama sharciga bini'aadanimada. bini'aadan baynu wada nahay waxa doonto walaal ahaw adigu waxa rabta ahaw qabiilka doonto ahaw sida adigu u nacabteen lagu dulmiyo sida aad u nacabtahay in lagu jirdilo sida aad u nacabtahay inaad maanta uu qofi kugu gafo ayuu shakhsi kastaana walaal macaan u nacab yahay. marka adiga nafsadaada ka soo qaad qof kasta oo bini'aadan ah oo qof bini'aadan ah kugu gafin wuxuu ilaahayba ka xaaraantimeeyay. صاحب بيلساد دوكسونيدين بويلka dhalinyarada ahaa ee lagu dilay Nairobi ee Shukubaba lagu magacaabayay ee doksonadeen sida axmaq darrada ah ee bilaadamiirka ah ee Soomaalinimadu ay ka baxsan tahay loo garaacay ee loo jirdilay si gobonimo leh oo Soomaalidu maanta ay ku faraxdo ay run ahaantii u hadlay. dabcan wuxuu soo duubay muuqaal uu isla hadda oo caaw soo duubay isagoo ka soo kabanaya dhammaan nabaradii sida arxan darrada ah lagu geystay wiilka dhalinyarada. haddaba wiilka dhalinyarada ahi wuxuu sameeyay wax maanta Soomaalidu ay ku faraxdo. dabcan wuxuu noqday wada maaragtay dulmigii dadka lagu hayay amba bas dhalinyar noqdaan amba hooyooyin Soomaaliyeed noqdaan amba bas odayaal noqdaan ayaabuu maanta heeriyadii dulmiga ayaabuu wiilkaasi dad badan ay ku tuureen. bal Shukubaba ayaan markani wada dhageysan doonaa muuqaalkiisa. alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Soomaalida la caalamka joogto waan salaamay waxaan wada idin samarnaa salaam ka soo gaday kashkii laabta waa wali only Shukubaba waxaan aamin yahay asxaabay horta inta qalbiga jecel waxaan leeyahay waa caafimaad qaba wiilkiina waa caafimaad qaba waataan. waxaan idin sheegayaa oon halkan usoo fadhiistay hooyo Soomaaliyeed ama wiil walaalkay ah Soomaaliyeed oo mataqaanaa dulin iyo caqabado fara badan lagu hayay. insha Allah taas way dhamaatay wayna soo afjarantay. okay saaxiib beelsadooda jeedan wuxuu ka dhawaajiyay wiilka dhalinyarada ah ee sida Soomaalinimada leh ee dhalinyarnimada leh uu kacay maalinkii Sharmaboy dulmiga Soomaalidu ay ka xumaatay hadday noqoto dhalinyar iyo qof kale hadday noqoto gabadh Soomaaliyeed iyo hadday noqoto culimo Soomaaliyeed de qof kasto maanta damiir leh uu ka xumaaday in kasto dadii ay haddana ay sii qabiyaaladeynayeen in kasto dadii ay sii dadaayeen haddana wiilkaasi wixii lagu dilay kaliya ta waxay ahayd maxaad ugu doodaysaa amba se aad uga damqanaysaa wiil aan kula dhalan oo kula qabiilayn taasi oo muujinaysa inaad kaliya ta u damqato kugu qabiila oo aanad u damqan qof kale oo aan kugu qabiilahayn. taasi ayuu haddaba wiilkaasi isaguna diiday oo maanta qof dhiig Soomaaliyeed ku jiro xalaal ayaan oran karaa inuu yahay sababtoo ah wuxuu ugu damqaday waa Soomaalinimo ee ugu muusan damqanin Sharmaboy qabiilahaan. qof walibana magaalada Nairobi loo wada sameeyay si xaq ahna waa lagu wada joogi doonaa. inta la soo dulmayna insha Allah dhiigayga ay idin daatay. guushu waa xageena. waxaan leeyahay Soomaaliyeed meel ba joogtaan ducada waa dhankiina. ويا Shukubaba maanta wuxuu ka baahan yahay Soomaali ahaan duco inaad u ducaysaan inuu caafimaado sidoo kale inaad u ducaysaan in rajada uu leeyahay ee ah inuu ninkaasi ka cad dhacsado isagoo oon dilin balse ka gacad dhacsado sharci waaqaca oo bini'aadanimo oo uu soo saaro dulmigiisa iyo dhibaatadii uu magaranaysa ummadda Soomaaliyeed ku hayay inkastoo aysan qarsoonayn balse ay deedada qarinayeen oo magaranaysa wax loo jeedo haddana laga gaabsanayay waana waxyaabaha Soomaali maanta haysta ee qof bini'aadan oo dulmi geysanaya oo maanta dhiig cabaya ayaa masaajid lagu ducaynaya. dabcan dadka uu dilayay dad iyo fara badan ayaa waxay ahayn gaangis dhalinyaro gaangisa waxay doonaan ahaadaan gaangiska waxay leeyihiin qaab kale aba wada kale oo loola dhaqmo laakiinse maahan in la dilo laakiin ruux dila hal dila ka waa badiyus
waxaa jirta dhalinyaro maaragtay adduunka ku nool oo iyagoo dharagsan oo maanta wax kasta haysta ay dulin doqoniimo iyo kibir uu u geeyo inay gaangis ku biiraan oo adduunka ku nool. laakiin anigu waxaan ubaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee halka ku nool dabcan qaarkood laga yaabaaba in tuugnimada amba bose ma garanaysaa doqoniimada waxyaabo ay sameeyaan in qaarkood mid iyo laba in uu geeyo duruuf, laakiin inta kale kibir u geeyay adiga anyway wixii doonaa ha u geeyaan, laakiin se marnaba ma saxsana inaad qof bini aadan aad ku gafto. marka anigu malihi yarada macnaha nooca u dhaqmaysa hal la daayo malihi, laakiin qaab kale oo qurux badnayd oo ka wanaagsanayd oo aan dilahayn ayaa loo dhaqmi karay. laakiin se ninkaasi waa dilay dilkana ilaahay baa kala xisaabtamaya, waxaan anigu kala xisaabtamay ma wuxuu shakhsiga kala xisaabtamaya waa wax ilaahay iyo isaga ay ka wada xisaabtami doonaan. balse dulmiga ku hoos qarsoonaada intuu dadka dilayo inta kale ee ma garanaysaa uu dulminayo ayaaba ma garanaysaa ka badnayd. dabcan sida wiilkaasi ka dhawaajiyay uu sheegay uu yiri qof dambana ku dhibaatooyin maayaan magaaladaasi Nairobi. hooyooyin fara badan oo Soomaaliyeed la soo dulmay, gabdho fara badan ayaa la soo dulmay, wiilal fara badan ayaa la soo dulmay, laakiin baabkaasi uu soo jarmay tanaan u dambeyn doonto insha Allah. aad iyo aad aan idin salaamaya, waxaan u dhimanaynaa Soomaalinimo. okay, si kasta aataba walaalkay waxaan ku soo rajeynayaa caafimaad, sidoo kalena waxaan ku soo rajeynayaa in ilaahay macnaha dhib kale uusan kuu keenin oo hadallada maanta aad leedahay uusan dhib kale kaaga iman, maadaama aad ku dhex nooshahay dad qulubtooda iyo qalbigooduba uu noqday qabiil balse aan ixtiraamaynin waxa la yiraahdo bini'aadanimada balse sharciga bini'aadanimada. bini'aadan baynu wada nahay, waxaad doonto walaal ahaw, adigu waxa rabta ahaw, qabiilka doonto ahaw, sida adigu u nacabtahay in lagu dulmiyo, sida aad u nacabtahay in lagu jirdilo, sida aad u nacabtahay inaad maanta uu qof kugu gafo ayuu shakhsi kastaana walaal macaan u nacab yahay. marka adiga nafsadaada ka soo qaad qof kasta oo bini'aadan ah oo qof bini'aadan ah kugu gafin wuxuu ilaahayba ka xaaraantimeeyay. aan nafsadaada aanad adiga u ogolayn lagu gafo, waxaanad adiga si aanad adiga u ogolayn lagu la dhaqmo qof kale oo bini'aadan ah ula dhaqmin. intaas ayaa iga dardaarana, waxaanan wiilkaas u rajeynayaa nolol qurux badan. wuxuu leeyahay walaalkay guulayso, dulmigana weliga ayaa Allah haddii kow lagaaga siinayo ha qarin, sheeg wax allaale wixii wax dulminaya, xaqa ku dhimo. kana sidoo kale waxaad leeyahay qof kasta muuqaalkan daawanay weliga ayaa Allah qof kale ha ku taageerin qabiil, qof wax dulminaya ha ku taageerin qabiil, qabiilku doona ahaado. anigu ma ku yihi qabiil wiilka maanta la dilay, ma ku yihi qabiil daahir cali soo wax dulminaya, ma ku yihi qabiil maanta ninka wax dilaya. si kasta tabidkana waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed mar walba qabiil iyo qurun haddaad ugu sacabato tan qof wax dulminaya idinkana waa ogsoonaada inaad ka qayb qaadateen dulmiga. wallaahi cadeen dulmiga ma kaliya ta qofka wax dulmiya ee kuwa jira afka kaga qayb qaata iyo kuwa jira taageerada ay u muujiyaan waxa wax dulminaya kaga qayb qaata. marka taageero marnaba u muujinina qof wax dulminaya ba qof kale ku gafaaya. okay, si kasta tabadiyad ugu mas'uul shaqada muuqata tadawati waxay ka sidiga salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. inaan muuqaalka xiga peace.